بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo gudbinaynaa maadada xisaabta gaar ahaan ciwaanka loo yaqaano fraction amba jajab objectives. Waxaan doorka saari doonaa qodobkan soo socda. Qodobka koowaad waxa waaye define fraction qeex jajab. Qodobka labaad waxa waaye list the types of fraction tiri noocyada fractionka. Qodobka saddexaadna waxa waaye explain and solve like terms. Saddexdan qodob ayaan doorka saaraynaa marka. Waayahay fraction kormarayna waa maxay jajab? Fraction waxaa la yiraahdaa is a number waa tiro written u qoran in the form of a divided by b amba a of b waa xisaab kasta u qoran a loo qaybiyo b weer halka a iyo b ah integers a iyo b na waa abyoonayaal b na lamid maaha zero a loo qaybiyo b ma qoro b dan laba ogolo inay zero lamid noqoto marka waa number kasta oo loo qori karo noocan a iyo b da oo ka kooban yahay amba x iyo y waxay rabaan noqdaane integers inay noqdaan qasab waa b na lamid noqoto zero waxaa loo yaqaanaa fraction waayahay noocyada fractionka meeqa nooca jirta nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa proper fraction aa la yidhaha proper fraction muxuu yahay jajab qumane ayaa la yidhaha jajab qumane isa fraction waa jajab which numerator sarreeyihiisu wuxuu ka yar yahay denominator hooseeyihiisa waa jajab kasta oo sarreeyuhu ka yar yahay hooseeyaha tusaale waa kanaa example tusaale 3/5 3 waa sarreeye waxaa loo yaqaanaa numerator 5 na waa hooseeye waxaa loo yaqaanaa denominator marka numerator iyo denominatorka yaa weyn hooseeyaha weyn sarreeyaha yar mar kasta oo sarreeyuhu least than uu yahay waxaa loo yaqaanaa proper fraction ayaa la yidhaha waayahay in proper fractionna ku xiga jajab maqumane ayaa la yidhaha jajab maqumane ayaa la yidhaha isa fraction waa jajab wejkaasoo numerator sarreeyuhu is greater than uu ka weyn yahay or amase equal uu lamid yahay to the denominator hooseeyaha markan waxaa waaye sarreeyaha ayaa weyn ama waa lamid ama waa isku mid sarreeyaha hooseeya waa isku mid tusaale waa kanaa tusaale waxaa ka mid ah 7/4 hadda sarreeya iyo hooseeya weyn waxa waaye sarreeyaha weyn maadaama uu sarreeyuhu weyn yahay waxaan leenahay waa improper fraction waayahay mixida kusoo haray mixed fraction is a whole number waxaa la yidhi waa tiro idil combined with proper fraction loo geeyey proper fraction waa waxaa la isu keenaya laba ka kooban yahay mixidka laba ka kooban yahay whole number iyo proper fraction ka kooban yahay mixed fraction jajab dhafan ayaa la yidhaha jajab dhafan tusaale waa kana waa 2/3 2dan waa waxa loo yaqaan whole number tiro idil waa jajab ma ahan 1/3 ganna waa jajab marka waxay kooban tahay 2dan oo whole number ah iyo 1/3 gan oo tiro idil ka kooban tahay sidaa darteed waxaan leenahay mixed fractionku waa whole number combined loo geey with proper fraction tusaalihiisana waa kana saddexdaas ugu caansan fraction marka la qaybinayo proper fraction improper fraction iyo mixed fraction oo ah jajab qumane jajab maqumane iyo jajab dhafane wax ka badan waa loo samayn karaa laakiin saddexdaana ugu caansan saddexdaasaan kusoo gaabsanaynaa waayahay lag terms aa la yidhaha ugu leyn waa maxay lag terms tibxa isku mid ah the fraction jajab with half the same denominator fraction hoose isku mid ah leh fraction hoose isku mid ah leh ayaa iskoolada waxaa lagu magacaabaa lag terms aa lagu magacaabaa maxaa lagu magacaabaa lag terms markay arka fraction hoose isku mid yihiin waxaa loo yaqaanaa lag terms haddii hoose ay kala duwan yihiin waxay noqon doonaan lag terms ku tegi doonaa waayahay example koowaad solving the following fractions jawaabtan soo socda xalli midka ugu horeeya number a waxaa la siiyey 1/6 plus 7/6 horta waxaan fraction yihiin haa koreeya hooseey leeyihiin haa fractionkaas hooseeya haddii isku mid yahay maxaa la yidhahan dhaadhaate lag terms aa loo yaqaanaa waa lag terms buga fraction oo lag terms haddaan sii kala qaadada midkan proper miya mase waa improper haddii la weydiiyo kan intaan keligiis waa proper sababtoo sarreeyiisa yar halkan intaan waa improper sababtoo sarreeyiisa weyn waa proper loo geey improper markii loo fiiriyo denominator ahaana waxay noqonayaan lag terms isku mid ah waayo solution dheh waxaan soo qaadanaynaa 1/6 plus 7/6 hoose hadduu isku mid yahay hala laga qaataa sarreeyaasha isku daraynaa 6dan iyo 6dan hala ka qaadanaynaa sarreeyaashana isku daraynaa waa kana 6 iyo 6 hala baan ka qaadanaa faraan ka xariiqaynaa 1 soo qaado pluskan soo qaado 7 koreyaashana isku daray labadan haba ka qaadanaysaa 1 plus 7 waa 8 divided by 6 waa la isku yaray karaa isku yaray marka kor iyo hoos laba wadaagaan 8 lagu qaybi waa 4 6 lagu qaybi 3 hadda waxaa soo baxda 4/3 fractionkan soo baxay ma proper ama waa improper sarreeya iyo hooseeya weyn sarreeyaha weyn sarreeyada weyn maxaa lagu ogaay improper waay improper looguma tagay mixida loo bedelaa sidee mixi loogu bedelaa marka
mixidkaana u bedelna hadda mixidkan iyo improperkan isku qiimo waaye sida ugu bedelna waa fududahay waxaa leedahay tira haddii saddex lagu dhifto afar aan ka badanayn meeqa waa tira haddii saddex lagu dhifto afar aan ka badanayn meeqa waaye wax afar ka badan lama rabo saddex haddii hal ku dhifto waa saddex haddii saddex laba ku dhiftin lix afar ka badaya hal usoo laabo saddex lagu dhiftay hal ayaa saddex naqaysa ka badan mayso tira haddii saddex lagu dhifto afar aan ka badanayaa waaye marka waa hal halka meeshaan ii dhig marka halka meeshaan ii dhig calaamadda loo qaybsho qor saddexdana hoos dhig inta one aan dhigday intana saddex aan dhigday saddex hal ku dhifo meeqa waa saddex afar xaa iga dhiman hal kii dhinaan kor saaraya marka proper fraction mixed fraction ay kusoo baxaysaa one over three u qaybina lagu soo saari karaa laakiin midaan naga fududan isleeyahay number a oo kaas ahay waxaan gudbaynaa number b waxaa laysiiyey waa laag term isagana two of seven plus three of seven aa laysiiyey hay solution dheh soo qaado two of seven plus three of seven soo qaado oo sayawa isku mid halaan ka qaadanaa two iyo three dan waa isu geynaya isu geeyan leh oo sayawa isku mid halaan ka qaadnay two plus three ay noqotay labadan two plus three waa mawjiye stepka waa isku darayaa labadan laba lagu daray saddex maxaa waaye shan oo sayna maxaa isdhaa todoba waxaa soo baxday muga five of three five of seven halkaa meeshan lama dhaafi karo kii hadaata waxaa loo qoraa improper waxaa loo qoraa mixed waayo kan mixed lagu qori waaye loo qori ma karo sarreeya iyo hooseeya fiiriyaa weyn hooseeya weyn marba hadduu sarreeyuhu yar yahay xisaabta taalla waa proper fraction meeshara looga tagaa halkaana fiiri sarreeyaha weynay waa improper lagama tagay mixeda loo bedelaa marka tanu sideeray proper fraction ku tahay five of seven halkeeran waa tegaynaa marka number a waxaa soo baxday five of seven number b waxaa soo baxday one of three example one waa kaasaa waxaan rabaa marka activity-gan in isku daydo ka jawaabtid activity-gan waxaa lagu yiri correct waxaad maxaa la yidhi circle waxaad goobo gelinaysaa correct one midka saxda ka dooro waxaa la siiyey three of eight plus one of eight oo say waa isku mid waa laagtay three of eight plus one of eight is equal to waxay la mid tahay number a three of eight ay la mid tahay maya number b one of four ay la mid tahay maya number c one of two ay la mid tahay haddii xisaabtan laga soo shaqeeyo saddexdan jawaabood mid kamid ah soo baxayso isku day jawaabta commentiga kusoo bixi aad ay u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh